fahmina marka anaka waa idin haynaa xil caabud iyo siyaasad caabud oo wax walba uu sameynay kabiir kasta u galay laaluushkan iyo waxaan lagu sheegay dadka qaar waa lagu qasbay xaqaaga ma heli kartid ilaa inaad laaluush bixisid saxa qofkan xaqiis uu dhacsana wax meel wax kale uu sameey ma yaqaan laaluush lagu qasbaya inuu maartay bixiyo iska bixina fahmino iyo dad u qasday maartay laaluushka yaa iga qaadana ana maartay maxaa la yiraahdo igu qoray xil caabud iyo siyaasad caabud insha Allah waana harayaan الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سو دوادا waxaan idin leeyahay maaragtay ramadaan mubaarak insha Allah waxaan jeclaan lahaa maanta inaan idin kala sheekaysto laba mowduuc ama saddex mowduuc haddii ilaahay idmo insha Allah oo runtii mid ka mid ah ramadaanta waaye tan kalena insha Allah arrimaha iyo xaaladda hadda waddanku marayo aan jeclahay inaan wax ka yiraahdo waxaan maaragtay ku dabaqaa xaaladaha hadda jiro tan insha Allah banaadiriga haddii ilaahay idmo ayadana insha Allah waxaan ka taabanaa marka runtii waxaan ku jirnaa maaragtay bishii ramadaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu farad yeelay soonka sida ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka uu ku yiri kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum bishan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka fadilay bilaha kale oo dhan wuxuuna u doortay in maaragtay qur-aanka la soo dejiyo inna anzalnahu fi laylatin mubaaraka waxaan soo dejinay qur-aanka habeen barakaysan habeenkaasna aayad kala tilmaantay inna anzalnahu fi laylati alqadri nabiga sallallahu alayhi wasallam qur-aanka wuxuu ku soo degay bilaha kale oo dhan ramadaanta kaliya nabiga sallallahu alayhi wasallam uma imaanin bilaha kale oo dhan ay maartay quraanka u yimideen wuxuu yimideen bishii shawaal dhil qa'ida waa yimideen dhil hijjati waa yimideen muharram ila aakhirih quraanka wuu soo degay laakiin sida culimadu ay sheegaan 3 sano ayay maartay soo degitaanka quraanka uu socday wuxuu ku koobnaa jumla ahaan fi as-samaa ad-dunya samada adduunka oo soo xigta ayuu maartay ku koobnaa quraanka wuxuu ahaa wixii uu la hortagi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam kufaarta iyo mushrikiinta markay ayagana maartay dood kale la yimaadin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku soo dejin jiray nabigiisa sallallahu alayhi wasallam ayado ka fiican waxa ay maartay kufaarta ay ku doodayaan markii yani doodooda iyo macna darahooda u batayna waxay keeneen maartay inay nabiga ku jeesjeesaan oo ay dhahaan ama xujo ay ka dhigtaan in quraanka la soo dejiyo hal mar jumlatan waahida وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحو يعني سيداس وطلقلي النبي صلى الله عليه وسلم قلبي يسوك حسليو وانا مارت اوكلا ديقو ولا يأتونك بمثله waxa ay ku doodayeen markii la fiiriyay midalkiisa ma keeni karaan illa ji'naaka bil haqqi haq ayaan maartay kula nimid quraanka wa ahsana tafsira tafsir kiisa ugu wanaagsan anzalahu bi'ilmihi ilaahi subhanahu wa ta'ala oo og ayuu maartay quraanka uu soo degay wax iska soo faktay oo iska yimid maahan marka kaas fadliga uu bishan uu leeyahay
ay ka mid tahay ilaahi subxaana watacaala qur-aanka ayuu u qaas yeelay. Fadliga bishan waxaa ka mid ah in addoonka loo dembi dhaafayo dembigiisa hore iyo dembigiisa dambe haddii uu soomo asagoo yaqiinsan soonkaas in waajib ilaahay subxaana watacaala uu yahay, iyo asagoo ka ajir dalbanayo, isla markaasna maaragtay isku dayaya inuu ka fogaado ciqaabtii ilaahay subxaana watacaala. nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi: man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi. xadiis kale: man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi. marka weyneyn bishan ayada la weyneynayo, nabiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi: idaa jaa ramadaanu futixat abwaabu ljanna. irdihii jannada ayaa la furay ramadaanta markay timaado. saas awgeed waxaa dadka lagu dhiirgelinaa inay soo dhoweeyaan taacadii alleh subxaana watacaala iyo ku dhaqanka camalka khayrka badan. axaadiis kale ayaa tilmaamayo in irdaha maaragtay naarta saasoo kale la xirayo, wagulliqat abwaabu jahannam. axaadiis kalena waxay tilmaamayaan in shayaatiinta la xirxirayo, wasulsilati shayaatiin. intaasoo dhan oo axaadiis ayadan soo akrinay waxay ku kooban tahay keliya fadliga uu leeyahay bishan ramadaan oo ilaahi subxana watacaala uu ka fadilay bilaha kale. marka ilaahi subxana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu nuga anfaco, soonkeena maaragtay uu noqdo soon maqbuul ah, ilaahina subxana watacaala na waafajiyo inta ka harsan haddii ilaahay idmo. marka arrimaheeni kale soo gudbaa. arrinta hadda meel oo fiican ma marayso, runta fiican. waxa lagu tala jiro dadka inay ogaadaan oo maaragtay ay ka feejignaadaan aad iyo aad ay muhiim u tahay. waxaa jiro sirdoona caalami ah oo ka shaqeynaya maaragtay dhibaatooyin badan oo waddankeena kusoo socoto. marka feejignaanta aad iyo aad ay muhiim u tahay. xaaladda dalka oo hadda oo caalamka oo dhan waxaa loo tusaa inay mid khatara tahay, inuu maaragtay hadda hanaan doorasho oo heshiis lagu yahay inuusan jirin. waxaasa laga sheekeynayo. waxaa la inkirsan yahay in maaragtay dowladda dhexe ay isku dayday inay la shaqeyso maamulada ka jira dalka, iyo in maaragtay tanaasulaad ay u samaysay si yani doorashooyinka ay u dhacaan. waxaa hadda laga dhigaa ama dadka loo tusaa ama caalamka loo tusaa dowladda inay tahay mid aan sharciyad haysanin, oo maaragtay xilligeedii dhacay ee waddankan uu ka jiro faraaq siyaasadeed. waxaa la buunbuuninayaa arrintii oo ay ku magacaabeen muddo kororsi, wax uu go-aan ka gaaray baarlamaanka dalka. waa arrin go-aan uu ka gaaray baarlamaankii dalka, iyo cadaadis kala saaro dowladaha sida gaarka ah ay isugu dhow yihiin Soomaaliya, Turkida oo kale, Qatar oo kale, Ethiopia oo kale, Eritrea oo kale. waxaa lagu tiri jiraa oo ayadan khatar ah in la dhiso unugyo ciidan oo qabiil ah, disiblinadii ciidankii ku shaqeynayeen in la baabi'iyo. waxaa la dhiirigelinaa in ciidamada dowladda ay tababaratay inay maaragtay u kala goostaan deegaanadoodii. ilaan qabiil kasta meeluu degay deegaanadoodii inuu kala goostaan. saraakiisha sarsare ama ay kala yacan gebi ahaan iskuna bedelaan kuwa kasoo horjeeda dowladda, amniga qaranka meesha ku baabao. marka waxaa hadda culays la saaraa caalamka intiis kale, marka si yani loo yareeyo kaalmada dibadaha oo Soomaaliya ugu yimaado, tababarka militariga, mashaariicda kale ee dalka imaanaya iyo kuwa badanaaday. marka waxaas dhan maxaa ka dambeeya? waxaa la dhibsaday yani inay Soomaaliya codsatay
inaan arrimaheeda la soo faragelin karin oo ayada maaragtay si gaar ah ay u leedahay inay tahay maaragtay dowlad madax bannaan oo sovereign ah. marka hadda waxaa maaragtay tala dadka Soomaalida inay maaragtay dalkooda ay u tashtaan cidna aysan isku halaynin. hadda kuley hadalahayn noocaas oo kale waa bilaabatay, waana maaragtay saan rajeynayo waa loo riyaaqsan yahay. waxaana fiican oo wanaagsan maaragtay arrimaha noocaas oo kale si xikmad ah in loo dhaqmo, si xikmadaha maaragtay in loola tacaalo. khibrad waa u leenahay maaragtay in the past wixii soo dhacay, wixii aan soo aragnay waa naqaan. hal waxaa markasta muhiim ah in maaragtay aan lagu ihaanaysanin wadankaaga gudihiisa, aan lagu ihaanaysanin banaankana maaragtay aan lagu ihaanaysanin. khaasatan madax sarsare ee dowladda waxaa la rabaa inay asxaab caqiida ahaadaan. ciidanka maaragtay markii la dhisayo caqiidadooda in la dhisaa maaragtay waa inuu wadanka u dhintaa, inuusan qabiil u dhimin, wax saas oo kale. dadka madaxda laftooda ayaka kowka waa asxaab alcaqiida inay noqdaan, khaasatan maaragtay in ilaahay subxaanahu watacaala ay ku kalsoon yihiin. waa arki kartaa, waa dhici kartaa in maaragtay adduunka isu ka aruursado ama qayb ka mid a adduunka isu ka aruursado, in maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala lagu kalsoonaado. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wa'lam law anna al-ummata ijtama'u wa in ijtama'u ala an yadurruka, hadday isu aruursadaan inay aday dhibaato ku geystaan, lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alayka, shay oo maaragtay wixii aday ilaahay ku qormaa wax kale dhibaatiis kuma geysan karaan. naskaas waa sugan yahay. maxaa la dhahaa in qadartii ilaahay subxaanahu watacaala ay ka hadlaysaa. saas la isku aruursanayo maanta dadka lagu cabsiisinayo ama madaxda lagu cabsiisinayo si maaragtay ay ma aha doorasho laga tanaasula, wadanka dhanba inaad ka tanaasushid. sababta waxa waaye barnaamijka loogu talagalay Soomaaliya oo qorshaha diin cafinta qorshaha maalgelinta mashaariicda iyo waxaa la tababarka ciidanka iyo wixii lamid ah kulli waa qorshe loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo 4.5. haddii 4.5 meesha uu ka baxo oo qabiileysiga meesha uu ka baxo, budget ma lagu hayo. cadaadiska wuxuu ka bilaabanaa inaan diin laga cafinin, inaan ciidan lagu tababarin, in maaragtay lacagii lagu bixin jiray maxaa la dhahaa baarlamaanka iyo doorashooyinka kulli maaragtay laga yareeyo ama maaragtay la hakiyo. oo marka talaf noqotid qof maaragtay aan gacantiisa waxba ku haysanin oo meel wax ka keena aqoonin, adduunka dhan laga soo xirxiro inaa noqotid, markaas ay isdhiibtid. walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum al-a'lawna in kuntum mu'miniin. haddii aad tahay saaxiib caqiida oo iimaan leh, ma lagu ihaanaysan karo, mana ka murugoon kartid arrimahan oo kale. insha allah shacabka Soomaaliyeed oo muslimkana maaragtay arrintaas inay fahansanaadaan, ay dalkooda iyo dowladooda taageero ay siiyaan. marka insha allah waxaa loo socdaa maaragtay in laga gudbo doorashooyin oo dadban. waxaana insha allah la aadi doonaa doorashooyin qof iyo cod insha allah la aadi doonaa. maanta wax kasta insha allah gacanta waxaa loo gelin doonaa shacabka, ayadaana maaragtay go-aan ka gaari doonto ciddii xukumi lahayd. waxaan maqalnay maalin hore maaragtay guddooyinka doorashooyinka heer federaal iyo kii gobol in maaragtay la kala diray. runtii aniga mas'aladaas aad iyo aadan ugu farxay. ma ahayn runtii guddi maaragtay siisaba xaq lagu soo dhisay. dood badan iyo buuq badan oo maaragtay guddigaas kiciyey, khaasatan kan Banaadir oo anaga khaaska noo waxaa samaystay koox burcad ah oo maaragtay rabtay inay doorashada afduubtaan. marka 4.5
وانا قهري إن شاء الله كو قرابسي قبيل كان وانا قهري إن شاء الله وأكتين إنه عذر يهي عذر كوحن وهالستوكاه من لماذا ومد الصوماليات خاصة من لماذا بلا بنادري واركتين عذر كوكيه وحان أركني ما أركت قبيل كالوفاناي اسكوفان كهيرك وجاري واركتين إلا اسكوفانو وحان أركاي أنا مقلاي ما أركتي سو جارتي قبيل لها يها أنا كأهين ضدك سياسة دولي قد كجري جرت intaas yani waxay rabaan in loo meel marsiiyo wax musuqmaasuq la dhahay in meel loo marsiiyo rabaan walaalood kale oo maaragtay kuraas haysto ama wax haysto ay u quri laayihiin fahanti kuwa maaragtay la yeesayo leeyahay oo la takorayo oo leeyahay maaragtay idinka saan leed eedeen siyaasad maxaad ka taqaanin idinka laftigiina waa yartiin ma tiri badan tihiin anaka tolweyne maxaa siyaasad ka taqaan anaka waligiina siyaasad kuwaas la yeesayo yaa horjoogu kuwa wax yeesaan yaa horjoogu qabaa'il maaragtay oo la yeesayo oo ninka ay ka horjoogi ka dhigteen keensan nin professor ay ama maaragtay qof oo wax soo baratay academic maaragtay horjoogi ka dhigtay ayaa waxa yeesayo dad maaragtay horjoogi ka dhigteen dad ilaahay xalkood u geey hadda maaragtay aan hadla marbi laakiin waa aragtay in the past maxaa la yiraahdaa dad oo ay kiis haligay fursadii la siiyay xataa markii diriijid ka tuuri kaliya ay ka maaragtay wax meesha ku muwayn qabiilkoodii ay ka dhasheen oo maaragtay meesha keensaday war adiga xilkan qaado nagu matal magaceena qabiilka magaciisa maaragtay dawladda siyaasadda ha galo maaragtay shaashada laga arko aan la maqlo adiga maaragtay wax noo maxay sameeyeen toodii ay ku gaarka ahayd jagadii iyo xilkii iyo wixii ay haysteen dawladda ay ka tirsanayeen diriijada ay ka tuureen magacii qabiilkan meesha ka baxay maanta ma la dhihi karaa siyaasadda la sheegayo ku faanaysid waxa ka faansan dadka maaragtay aad maaragtay aad yeesaysid ya oo maaragtay maanta horjoog ka dhigtay koodii ugu fiicnaa oo maaragtay ugu aqoonta badnaa ay maaragtay horjoog ka dhigteen ay keensadeen ay dhaheen maaragtay anaka dadkaan la liid gareenayo oo maaragtay magaceena ay ku galayay siyaasadda oo ku matalay maaragtay ay u keensanay beelaha banaadir inay ku matalaan fahmino kuwa kalena waa jiraan oo aragteen oo kulligiina markhaati ah ka tihiin oo xaq aan ku imaanin ku yimideen laaluush sababtoo ah odayaal masaakiina oo maaragtay wax badan siyaasadda aan ka fahansanin oo maqlay maaragtay waxa la qaadano iska qaad adigana maxaa u diidaysaa wax siiyeen qoray ma fahantay laakiin xaq kuma imaanin taasna waa soo baxday banaankii u soo baxday oo aragteen maaragtay dad oo rabo beesha banaadiriga inay yani isku diraan oo kala jibiyaan si maaragtay ay ku xukumaan siyaasaddan rabo inay ku yeeshaan saaxib daa'in ah hayhaata waxaa naga haraya insha allah xil iyo siyaasad caabud waad ogtihiin inay jiraan maaragtay kuwa siyaasadda caabudo xililka caabudo inay jiraan saaxibul hawa shirki ku dhaca shaki ku jiro khaasatan dadka qalbigooda ka buuxa adduun jaceelka waa kuwan banaadiriyay sheegtaan inama ittakhadtum min duuni illahi awthaanan mawaddata baynikum fi lxayaati addunya ilahi subxana wa tacala uu sheegay ilahi subxana wa tacala waa sheegay waman yakfur bitaaguuti wayu'min billahi taaguutka maxaa waay taaguutka sanamya sanam keligiisa ma taaguutka waxaa wax kasto ilaahay keyrkiisa la caabudo fahmino marka anaga waa idin haynaa xil caabud iyo siyaasad caabud oo wax walba uu sameynay kabiir kasta u galay laaluushkan waxaan lagu sheegayo dadka qaar waa lagu qasbay xaqaaga ma heli kartid ilaa inaad laaluush bixisid seexa qofkan xaqiis uu dhacsana wax meel wax kale uu sameey ma yaqaano laaluusha lagu qasbaya inuu maaragtay bixiyo iska bixina fahmino iyo dad u qasday oo u qasday
maaragtay laaluushka yaa iga qaadana anaa maaragtay maxaa la yidhahda igu qoray xil caabud iyo siyaasad caabud insha allah waa naga harayaan. subxaanaka allah wabixamdik nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wanatuubu ilayk.